wejiga labaad ee shir sanadeedkii shanaad ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ayaa si rasmi ah uga furmay magaalada Cape Town ee wadanka Koonfur Afrika iyadoona shirka ay ka qayb galayaan boqolaal Soomaaliyeed oo doonaya inay ka faa'iideystaan shir sanadeedkan. Waxa uu shirka ka furmay masaajidka weyn ee Al Sunna oo ku yaala xaafadda Soomaalidu degto ee Belvel, waxaana lagu soo dhaweeyay oo ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Western Cape iyadoona shirka ay sanadkan ka qayb galayaan culumo وين أو عنك هذا يدي مسجد السنة وحين فضلنا فريتانك حفلتي مؤتمر كشنات جالية الصوماليات يكون نرضاك من سود أفريقيا أما كل العلميات كي وجيgiisa labaad magaalada Cape Town waxaan mahad celinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala wajal awood badan leh ee nagu manaystay iimaanka iyo islaamnimada isla markaana noogu deeqay culimo cilmi baahinimo iyo dhagannugeel isku darsatay oo noogu turin in goobihi ay joogaan loogu tago oo lagaga qaato cilmiga ee uu diyaar inay kala daba tagaan ummadooda aqoonta Ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala wajal una tagaan waxaan mustaqbalkeed ka codsanaynaa si dadaalka culimada oo sanon noqon mid ka soo qadaca ujeedadiisii ahayd hagaajinta in qof walba oo ka mid ah dadka ku dhaqan waskareengeed uu dhaqan galiyo qodob ka mid ah waxyaabaha ay culimada noo sheegi doonaan rumaantii waxaan si kal iyo laaba oo gacmo furan iyo laab furanba iyo wanaag ku jiro ku soo dhaweynaynaa culimada nooga timid dunida dacaladeeda una timid inay annaga nagaasiyaan diinta ay xambaarsan yihiin waxaan idin soo jeedinayaa haddii aanu nahay dadweynaha ku nool Western Cape gaar ahaan magaalada Cape Town in aynu culumada soo dhaweynteeda iyo haddii ay ugu yahay wacdigeeda iyo waxqabadkeeda intaba aynu ku heelanaano oo nidaamka gacmo furan ku soo dhawaada. mucadaradii ugu horeysay ee furitaanka wejiga labaad ee shir sanadeedkan shanaad ayaa waxaa soo jeediyay Sheekh Axmed Maxamuud Mohamed oo loo yaqaano Sheekh Axmed Yare. shir sanadeedkan shanaad ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika oo ay soo agaasintay hay'adda culimada Soomaaliyeed ee Albayaan ayaa lagu wadaa inuu soconayo ilaa muddo 3 cisho isagoona wejigiisa saddexaad uu ka furmi doono magaalada Port Elizabeth ee gobolka Eastern Cape. Mustafa Xasan, Telefishinka Universal, Cape Town.